kulanti habboon daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka NTN oo hadahan oo kala socotaan NTN TV qodobada wararka oo NTN TV idin hayo waxa ugu dooran muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika sidee ayay u dhacday dhacdadaasi Mareykanka oo weerar ku dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa ay shaacisay in ay qaadayso imtixaanka fasalka 12aad la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya waxa uu been abuur ku tilmaamay warar dhawaanahaani baraha bulshada la isla dhaxmaray maxay yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay ballanqaad uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddex xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland maanta waa is-casileen qodobada ka baxsan Soomaaliya oo aynu idin hayna waxa kamid ah Kenya oo shaacisay in ay soo afjartay barnaamijkeedii la xiriiray xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaab midowga Afrika oo Vladimir Putin ama xukuumadda Vladimir Putin waa dawladda Ruushka ee kala hadlay dagaalka Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan waa 4 Juun sanada 2022 qodobadii aad hore oo idinku soo sheegnay oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal xalay waxa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika lagu dilay ama dil lagu geystay ganacsato Soomaaliyeed kuwaasi oo lagu weeraray goob ganacsi oo ay ku lahaayeen halkaas weerarka lagu dilay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa fuliyay koox burcad Afrikaan ah kuwaasi oo dil u geystay laba wiil oo dhalinyaro ah isla markaana dhaawacay saddex kale waxa la sheegay in saddexda dhaawaca laba kamid ah ay dhaawacoodu u yahay mid aad u culus isla markaana laga saaray isbitaalada kadib markii dhaqaatiirtii la tacaalaysay xaaladooda caafimaad ay sheegeen inaysan waxba ka qaban karin iyadoo isla markaasi loo qaaday goobo kale oo looga raadiyay xaalad caafimaad muddooyinkii u dambeeyay waxa dalka Koonfur Afrika dilal qorshaysan lagu geysanayay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika kuwaasi oo halkaasi ugu haajiray inay ka raadsadaan ama ay ku ganacsadaan waxaana inta badan soo laabta shirqoolada lagu dilo dadka muwaadiniinta ah Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika kooxa si gaar ah u abaabulan oo markaasi burcada ayaa waxa ay weerar ku qaadaan dukaamanka iyo xarumaha ganacsiga ee dadka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin halkaasi dawladda Koonfur Afrika si cad barnaamij ugama soo saarin dilalkaasi qorshaysan ee lagu hayo dadka Soomaaliyeed waxaana marka ka dambaysa si soo taraya dilalka deegaanada kala duwan ee dalkaasi lagu geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu yaraan 5 kamid ah ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo dawladda dalka Mareykanku ay ka fulisay deegaanada Beerxaani iyo deegaano kale oo ku teedsan weerarkaani ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada midowga Afrika ma jirto wax khasaare ah oo dad shacab ka soo gaaray hawlgalkaani sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 16kii bishii hore May waxa uu saxiixay qorshe dib loogu soo celinayo boqolaal askari oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka saraakiisha militariga Mareykanka ayaa horay u sheegay in la dagaalanka Al-Shabaab ay ka go'an tahay isla markaana ay dib u soo celinayaan qorshihii uu horay u baabiyay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump gabi ahaanba ka saaray Soomaaliya ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa halkaasi madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo dhaweeyay go'aanka Joe Biden isagoo sheegay in ciidamada Mareykanka iyo saraakiishoodu ay taageero buuxda siin doonaan ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo tayintooda
lixdii bishani May ee dhamaatay ee ahayd markii wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in uu qatar ku jiro ama uu halis ugu jiro inuu baaqdo imtixaanka dugsiyada sare ee dalka kadib markii ay sheegtay in dhaqaalihii loogu talagalay qaadiska imtixaanaadkaasi aysan haynin waxaana taasi beddelkeeda si degdeg uga soo jawaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo isla markiiba amray in dhaqaalaha qaadista imtixaanaadka la fasaxo waxa uuna wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda ku amray in dhaqaalahaasi ay fududeeyaan Ismaaciil Yuusuf Cismaan agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay uga mahad celinayaan fududeynta adeegyada qaadista imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka wuxuuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadi doono imtixaanaadkaasi isla markaana la gudagalay qaadista jadwalka imtixaanaadka la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka lagu magacaabo Macallin Maxamuud ayaa ka hadlay warar saacadihii u dambeeyay la isla dhexmarayay baraha bulshada kuwaasi oo sheegayay in madaxweynaha Xasan Sheekh uu kulan la qaatay TPLF waa kooxda ka dhisan gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya Xuseen Macallin ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inaysan waxba ka jirin wararkaasi waxa uuna sheegay inaysan jirin wax kulana oo dhex maray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ballanqaadyo u sameeyay maamul goboleedyada Dani oo la hadlay wargeyska Economist ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ballanqaaday inuu la wadaagi doono istiraatiijiyadda xukunka iyo ballaarinta madaxweyne Dani ayaa faahfaahin buuxda aan ka bixinin waxyaabaha xukunka lagula wadaagayo ha yeeshee waxa uu sheegay in ballanqaad buuxa isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya u dhexmaray wararka ka imaanaya Somaliland ayaa sheegaya in xubnihii ugu dambeeyay ee ka tirsan guddiga doorashooyinka Somaliland ay maanta iska casileen xubinnimadii guddigaasi xubnahaani oo ahaa 3 xubnood ayaa warqadooda iscasilaadda waxay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo sheegay inay gabi ahaanba isaga tageen guddigaasi kala hore ayay ahayd markii sidaani oo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Somaliland ay iska casileen xubinnimada guddigaasi taasi oo jahawareer badan ka dhex abuurtay guddiyada doorashooyinka Somaliland iyo gabi ahaanba geedi socodka hanaanka doorashooyinka Somaliland iyadoo muddo bil ku dhow ay ka harsan tahay waqtigii dawladda Kenya ay sheegtay inay xirayso xiriyaha qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaab ee ku yaala bariga Afrika ayaa waxaa weli arrinkaasi aan loo jadwalaynin waqti go'an iyadoo ay walaac xoogan ka muujinayaan hay-adaha qaxootiga taageera laba xire qaxooti oo waaweyn ee ku yaala waqooyiga Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 430,000 oo qof kuwaasi oo ka soo kala jeeda 15 jinsiyadood oo badankood ay ka soo kala jeedaan wadamada Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo lama oga ilaa iyo hadda waxa ay ku dambeyn doonto kumanaankaasi qof xaaladoodu waa hadii la xiro xiriyahaasi qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaab mas'uuliyiinta ugu sareysa midowga Afrika ayaa jibcihii la soo dhaafay waxa ay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin kulan ay la qaateen kala hadleen dagaalka dalkaasi Ukraine uu kula jiro dalka Ruushka uu kula jiro dalkaasi Ukraine madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadkaani oo kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa soo hadal qaaday sida ay qatar ugu tahay dagaalka Ukraine ay la gashay Ruushku dagaalka Ukraine uu ku qaaday Ruushku ka hor Afrika waxa ay ka soo dhoofsan jirtay dalka Ruushka maciishada kala duwan oo ay ugu badan yihiin haruurka iyo qamadiga
waxaana dadka reer Afrika ama dadka Afrikaanka ah iminka soo food saaraysa nolol aad u adag maadaama dalalkii ay ku tiirsanaayeen uu dagaal xoogan ka socdo. madaxweynaha Senegal waxyaabaha uu sida gaarka ah ula hadlay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Putin ayaa waxaa ka mid ahaa sidii loo maareyn lahaa isweydaarsigii dhaqaale ee dalalkaasi iyo Afrika dhexmari jiray. waxa uu walaac xoogan ka muujiyay sii socoshada dagaalka Ukraine taasi oo keeni karta macluul xoogan oo soo wajahda dadka Afrikaanka ah ee ku tiirsanaa ka ganacsiga ama soo dhoofinta waxyaabaha ay ka soo dhoofin jireen dalkaasi Ruushka. NTN TV